السلام عليكم. مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaweyd soo gaaray magaalada Addis Ababa halkaas oo ay kaga qayb galayaan munaasabada caleemasaarka dhismaha xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka mid yahay madaxda Afrikaanta ah iyo madaxda caalamka ee lagu maamusay laguna casuumay ka soo qaybgalka munaasabadan caleemasaarka iyadoo kor loo qaadayo xiriirka miradhalka ah ee ku dhisan isqadarinta daris wanaaga iyo wax wada qabsiga. madaxweynaha jamhuuriyaddu iyo wafdiga diblomaasiyiinta ee la socda inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa waxay kulamo daceedyo la qaadan doonaan madaxda dhigooda ah. madaxweynaha waxaa safarkan ku weeheliya wasiirka qorsheynta qaranka mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Xuseen Xaaji xildhibaano iyo madax kale. waad mahadsantihiin.